laba unbaa wax ku dhaxasha, laba ayaa wax ku dhaxasha. al ummu hooya waxbay ku dhaxashaa thuludka meydka hooyadii, wa idaa lam tuxjab haddaan la xijaabin. xujbigaa wuxuu wadaa xujbu nusqaan wey. haddii hooyada aan wax hoos u dhiga helin, yiri hooyada meydka thuluth ma qaateen, laakiin waxaa jira hoos u dhigay. waad garad soo maa. haddii hooyada uu dadla joogo oo maxaa la yidhi fain lam yakun lahu walad wa warithahu abawaahu, ninkan dhintay caruur kama tegin, laakiin muxuu ka tegey aabihii hooyadii. maxay hooyadu heli thuluth falabaweyhi maxaa la yidhi wawaritha aba faliummihi athuluth wey. meyd baa dhintay, aabihii hooyadii way joogaan, wixii soo hadha odaygaa iska qaadan. hadday intoodan ba yihiin thuluth ba iska qaadan. waa wiilkeedi baa la dhintay moogta waa intaa dhaafeena waa la caruur waxba meeshii hoos u dhacay, marka thuluthkaas iska qaadan. wahuwa thuluthkii waxaa kaloo qaadanaya lithnayni laba iyo wafasaacidan wax ka badan oo min alikhwati walakhawaati min waladi lummi ah. hooyadaa caruuray nin kale u dhashay yaa joogta. ninka dhintay hooyadii caruur kaley dhashay, waladul baa la yidhaha. ninkan dhintay hooyadii yaa caruur, kuwan bahdooda ma aha, nin kale waa kale hooyo bay isugu yimaadeen, isku aaba maaha. waa inay iyaguna gaadhaan hal iyo wax ka badan, ikhwati walakhawaat labiyo wax ka badan. kolkaa laba ilmood iyo kolka dambe waxay u qeybsanayaan xoolahan, way isla ekeysanayaan. fain kaanuu akthara min dalika maxaa la yidhi fahum shurakaau fi thuluth. meeshan gabdhaha lagagama taagroona sharciga. waladu umka markii la isugu yimaado marnoo qaybiya un bay odhahan gabdhuhu. hadda laba wiil iyo laba gabdhood hadday waladu noqdaan thuluthka waa un la qaybsan. la odhan maayo lidakari mithl xadintayn meesha ma taalo. waxay ku leeyihin isku in baynu kusoo dhawaane isma hooyaan wadanaa inoo qaybiya un bay odhanaya. labadaasna wax ku qaato hooyo waxbay qaadataa meeshaas. waxaa kaloo qaata waladul dad ay meydkan xagga hooye ka walaalayihiin. haddii wax ka xiga la waayo, si laysu xijaabo waan gaari doonaa, oo waa haddii wax xijaabo la waayo ayaguna waxay iska qabsanayaan thuluth bay qabsanayaan. masaladan halkaasu ku dhamaaday. ma adka, masalada adag waa tan.